warar aan u fiicnayn dhagaha iyo maqalka ummadda Soomaaliyeed ayaa ka soo yeeraya magaalada Berbera ee Somaliland kadib markii magaalo xeebeedka Berbera lagu toogtay wariye rugcada sidoo kalena saxafi hore haatan u dhaqdhaqaaqi jiray arrimaha bini'aadanimada iyo sidoo kale dadka ku jira xabsiyada ee deymaha badan iyo lacagaha badan lagu leeyahay ayaa haatan waxa la soo sheegaya in lagu toogtay qofka aan kaaga hadlaya waa Cabdimaalig Muuse Coldoon oo ah wariye rugcada kana soo shaqeeyay Al Jazeera oo TV-ga caalamiga ee telefishinka caalamiga ee Al Jazeera sidoo kalena muddooyinkii ugu dambeeyay ku howlana sidii uu dadka ummadda Soomaaliyeed siiba dadka Somaliland xabsiga Madeira ku jiro ee waqtiyo badan ay ku qaadatay sidoo kalena maktab bixin waayay muddooyinkii badan ugu dambeeyay caawinay Cabdimaalig Muuse Coldoon ayaa haatan waxa ay warar ka soo gaarayaan in lagu toogtay magaalada Berbera halkaasina uu ku nafwaay waa hadal dhiilo ah sidoo kalena dhagaha ummadda Soomaaliyeed aan u fiicneen dad badan ay la qiiroodeen hadalkan ka nixiyay aan filaya in aadan ku farxin ayaa haatan waxa uu ka soo yeeray magaalada Berbera ee Somaliland magaalo xeebeedkan Berbera ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay iyo deegaanadaasi ayuu ku sugnaa Cabdimaalig Muuse Coldoon hase ahaatee haatan ayaa la soo sheegay in ciidamada Somaliland ay halkaasi ku toogteen hadalka naxdinta leh ee ka soo yeeray Berbera ayaa waxa uu muujinayaa in Somaliland markii hore lagu eedeynayay kaliya in Muuse Biixi Cabdi oo ahaa madaxweynihii talada ka dagay ku wareejiyay Cabdiraxmaan Cirro inuu ahaa keligii taliye sidoo kalena ugaarsan jiray wariyaasha iyo kalena caburin jiray saxaafadda madaxa bannaan ee Somaliland hase ahaatee haatan ayaa waxa uu muuqata in Cabdiraxmaan Cirro laftirkiisa uusan ogolayn sidoo kalena wadadii madaxweynihii ka horeeyay ee Muuse Biixi uu qaadaya hadii uu marba toogtay Cabdimaalig Muuse Coldoon oo dad badan og yihiin in dhibaato badan oo saa u balaaran uusan ku geysanaynin gayiga Somaliland kadib inuu waxyaabo diinta uu ka hadlo uu ku soo qorqoro page-kiisa Facebook ma ahane haatan Somaliland ayaa wajahaysa xaalad culus kadib hadii ay soo yeertay sidoo kalena la xaqiijiyay geerida Cabdimaalig Muuse Coldoon wariye rugcada samafale Soomaaliyeed oo ku sugnaa gayiga Somaliland Cabdimaalig Muuse Coldoon ayaa haatan waxa ay warar ka soo tabanayaan in muddooyinkii ugu dambeeyay uu ku sugnaa magaalada Berbera sidoo kalena tuulooyin hoostaga isagoo ka cararay magaaladii uu ku dhashay ku barbaaray kuna wax bartay Togdheer gobolka Togdheer ee Burco taas oo qabiil ahaan laftiisa Cabdimaalig ay dagaan magaaladaasi Burco hase ahaatee uu uga cararay naf iyo sidoo kale ugaarsi ay ku hayeen ciidamada Somaliland sirdoonka Somaliland oo ku raad joogay soo qabashada wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay wax uu baxsad ku ahaa xuduudda kala qaybisa Somaliland iyo sidoo kale Djibouti isagoo halkaasi ku dhuumaaleysanayay sheegayna inuu la joogo reer Soomaaliyeed oo sidoo kalena ay dhaliyo yihiin sidoo kalena ay wada dhasheen halkaasina uu joogo meel nabad ahna uu joogo hase ahaatee taasi haatan waxa ay noqotay in mar kale Cabdimaalig Muuse Coldoon la soo tabiyo geeridiisa waa war naxdin leh Cabdimaalig ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay halkaasi ku sugnaa haatan magaalada Berbera ayaa lagu toogtay hase ahaatee maamulka Somaliland ayaa wajahaysa fadeexad iyo ceeb weyn hadii uu Cabdimaalig Muuse Coldoon halkaasi ku geeriyoodo ama dhibaato looga geystay Somaliland ayaa sida loo ogyahay inta badan waxa ay caburisa saxaafadda madaxa bannaan ee halkaasi ka jirto iyo sidoo kale dadka Facebookerka ama wax ku soo qoro barta Twitterka iyagoo halkaasi ku ugaarsaday in sheegana in ay halis ku yihiin dhibaatana ay u geysanayaan qaranka jamhuuriyadda Somaliland sida ay ka qabaan cid walba oo ka soo horjeedana maamulkaasi ama jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida ugu dhaqaaqday ee Somaliland uu mudanaya xabsi iyo sidoo kale dil sida haatan ku dhacday Cabdimaalig Muuse Coldoon fadlan hadalkan dhiilada leh hadii uu ka nixiyay waxaan ka codsanayaa inaad u duceyso Cabdimaalig Muuse Coldoon wariye hore rugcada samafale Soomaaliyeed Cabdimaalig Muuse Coldoon muuqaalka like saar share garee sidoo kalena gaarsii saaxiibadaada si ay ummadda Soomaaliyeed ugu duceeyaan wariyahan Soomaaliyeed ee rugcadaaga Cabdimaalig Muuse Coldoon waxaan ka codsanayaa haduu channelka subscribe ku ahayn inaad subscribe ii saartid fadlan igala mid noqo asxaabta aan halkan ku wadaagno wararkii ugu dambeeyay caalamka iyo Soomaalidaba aad iyo aad u mahadsantahay